الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal, waa darsigeennii toddobaad oo ka mid ah duruustii aan ku magacownay duruusun fi lmanhaj, oo aan ku sharxaynay manhajka dacawiga ah ama caqadiga ah oo istidlaaliga ah oo ay leedahay jamacatu ictisaam bilkitaab wasunna. darsigeena maanta waxaan ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala baabka sideedaad oo ka mida manhajka asaga ah. baabkaas wuxuu ka hadlahayaa mowqifkeenna ama caqiidadeena ku aadan aali beytka nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabada nebiga ridwaan ullahi calayhim ajmaciin. baabka asaga saa la socotaan waa baab runtii lagu inxiraafay oo firaq maaragtay daallah ay ka soo baxeen weeyaan, oo sida shiicada oo kale oo saxaabada nebiga sala allahu alayhi wasalam aada uga xadgudbay oo badankood gaalaysiiyey ama tafsiiqiyey, oo diinta inay xarifeen oo diinta ku cayaareen ka dhigay. caqiidada shiicada runtii oo caqiide aada u khaldan ah, oo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ardadii nebigu uu soo saaray, asaga wax ka bartay, asaga diintiisa dhexlay, wax ka sheegahaya ayaa iyaguna jiray, welina waa jiraan. sidoo kale maaragtay dad waxaa jira maxaa ahlubeytka maaragtay aan qiimahooda iyo sharaftooda aan garanayn, inkastoo hadda maaragtay saas u jirinba. marka almuhim mawduuca asaga ah in qofka muslimka uu fahamsan yahay ayaa loo baahan yahay, si uusan ugu kadsoomin afkaarta munxarifka ah, gaar ahaan afkaarta shiicada oo ayaguna dhanna saxaabada wax ka sheegahaya oo durahaya oo gaalaysiinaya, dhanna aalubeytka maxaanku raha ifraad iyo kababadin ku sameynaya, heer ay gaarsiiyeen aalubeytka inay yidhaahaan waa macsuumiin, inay ka dhigaan aalubeytka sidii nebiga sal alla alay slam oo kale, inay yidhaahaan diinta waxa laga qaadan karaa aalubeytka keli ah ayaa laga qaadan karaa, ay yidhaahaan diinta waxaa laga qaadan karaa 12 imaam keli ah ayaa laga qaadan karaa, ummadii kale iyo culimmadii kale iyo saxaabadii kale ay leeyihiin waxaa laga qaadan mahayo. a'imadaas ay aamineen oo ay leeyihin diinta laga qaadanhayaana ay ka dhigahayaan inay macsuumiin yihiin, oo qowlkoodii hadalkooda uu xujo uu yahay. taasoo macnaheedu yahay qofka macsuumka oo qowlkiisa xujo uu yahay oo hadalkiisa aan la khilaafi karin, haddii qofkaasi qof darajo nebi la siiyey weeyaan. marka badanaana waxay maaragtay ay sheegaan in saxaabadu ay xadgudbeen, in nebiga ay khiyaaneen, inay diintii bedeleen ilaa akhirihi. wax badan bay sheegaan, waxaasoo taariikhaan wax sax ma aha. shiicaduna maanta adduunka way jiraan, dowlado badan ayay runtii ay maaragtay ayay ku jiraan, ay la nool yihiin. dowladda iiraan de ayada madax u aba oo dowladda ayaga iskale, waxayna go-aansadeen dowladda awooddeeda iyo milatarigeeda iyo dhaqaalaheeda dhan inay u isticmaalaan siday ku fidin lahaayeen madhabkooda shiiciga ah oo diini ahaan munxarifka ah. marka qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inuu fahamsan yahay
darajada saxaabadu ay leeyihiin iyo makaanada ay leeyihiin qofku inuu aaminsan yahay baa loo baahan yahay marka annagu nebigu sal allahu alayh wasalam saxaabadiisa waan jecelnahay aswaajtiisa iyo ummahaat almu'miniin maarata dhammaantood waan jecelnahay waa xurmaynaynaa ciddii necebna waa necbaanaynaa maxaa yeelay nebigu sal ly slam maxaanku darajadiisa iyo fadligiisa iyo cilmigiisa ayagaa dhaxlay marka waxaa loo jeclaanaya waxaa weeyaan waa nebigu sal lla alay slam ardadiisii la jihaaday oo difaacay oo xoolahooda ku bixiyey oo naftooda ku waayey weeye oo diintiisay dhaxlay weeyaan nebigu sal allahu alayh wasalam in dacwadiisu najaxdo oo diintiisa fido dadkii sababta u ahaa weeyaan marka nebigu sal ly slam ficnaantiisii iyo fadligiisii saxaabadiisa ayay usoo gudbaysaa saxaabadan tirada badan oo wanaagsan oo ummadaha kale ka fadliga badanna waxay muujinaysaa inay nebi fiican oo fadli badan ay ka soo jeedaan ayay muujinaysaa runtii shiicadu ma oga saxaabada ay durahayaan nebiga sal ly slam oo la duro ayay runtii ka mid tahay ama soo hosgelaysaa maxaa yeele waxaa la odhan karaa hadday saxaabadan ay xun yihiin oo ay eberkooda yihiin haddii ciddii waxbartay oo soo saartay ayaaba maxaan ku wara xumaanta iska leh ayaa la odhan karaaba tan kale waxaa weeyaan saxaabada maxaan ku maarata bani aadam weeye khalad baa ka dhici kara waa tii xataa isdagaaleen mararka qaarkood marka anagu waan xurmaynaynaa waxay dhexdooda dhacana oo ayagu maxaan ku wara isku sameeyeenna sii dhexgeli mayno dhammaantood inay wanaag doonahayeen oy mujtahidiin ahaayeen oy ajarkii ay leeyihiin baan ictiqaadinaynaa qofkii marka saxaabada waxun ka sheega ama taariikhdooda been ka sheegahaya ama si xun uga hadla taariikhdooda oo durahaya mawaaqiftooda ama durahaya maaragtay aragtidooda durahaya ama qasadkooda wax ka sheegaya qofkaasi qof baadiis inuu yahay baanu aragnaa sidoo kale waxaan aaminsanahay in saxaabadu ay yihiin khayra hadi lumma ummadda kuwa ugu khayr badan waa saxaabada nebiga weye sala allahu calayhi wasalam guud ahaan ummadaha oo dhan markii ambiyada lasoo dhaafo ummadeenna ayaa u fadli badan ummadeenna saxaabada nebiga sal allahu alayh wasalam ayaa u fadli badan taabiciinta ku xigta taabiciinta ayaa ku xigta saxaabadana waxaa kow ka ah abubakar radiallahu canhu ayaa kow ka ah cumar baa ku xiga cuhmaan baa ku xiga cali baa ku xiga radia allahu canhum iyo intii ka soo hartay alcashara almubashara biljanna diinta ayaga ayaan ka qaadanaynaa fahamkeeda iyo cilmigeeda iyo camalkeeda maxaa yeeley waa raggii xaadiray diinta soo degitaankeedii iyo nusuusteedii oo soo degaysay iyo waaqicii ku soo degtay iyo maaragtay wixii jiray bay ka warqabaan cilmigeedii ayay leeyihiin luqadeedii ayay garanayaan ilahi subxaana watacala qur-aanka aad buu ugu ammaanay saxaabadiisa waxaa ka mid a aayaddan kusoo aroortay suuratu tawba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آيات عظيمة قلت الماميسة صحابة سابقين أولين ومهاجرين وأنصار يكون راعي وددو ذاس إن خير إلهيان ورده إلهي أي هلين aayaddan maaragtay suurat tawba ka mid tahay raqamkeeduna waa 100 taasoo marka qaarkood la oran karaba waaba tafaa'ul oo maaragtay inay 100% maasha Allah ay maaragtay guuleysteen oo waxay rabeen ay gaareen ayay tilmaami kartaaba haddii xagga arqaamta la eego marka inuu saasan ahlu beedkiisa oo la jeclaado maaragtay la ixtiraamo oo dhanna saxaaba ka ah dhanna qaarkood aysan saxaaba ahayn laakiin ahlu beedka ay yihiin xurmadooda ay leeyihiin ixtiraamkooda ayay leeyihiin nin kastana fadligiisa iyo dadaalkiisa ayuu leeyahay marka ayagu marka in la yiraaho ahlubeytka waa macsuumiin la yiraaho oo diintii keligood baa yaqaano la yiraaho oo abubakar diintii ma yaqaano oo cumar diintii ma yaqaano oo cuthmaan diintii ma yaqaano la yiraaho arrinkaas waa khalad in la yiraaho diinta cali keliya ayaa loo dhiibay asaga ka wakiil ah oo cali haddee markuu islaamay waa la ogaa nin yar buu ahaa kadibna nabiga sal alay wasalam noloshiisa oo dhan meel kasta ma joogin mar buu maqnaa mar buu xanuunsanaa marka qofka diinta in la yidhaaha hebel keli ah ayaa diintu ku aruursan tahay qofkaasi wuxuusan xamili karin ayaa dusha loo saaray maxaa yeelay inta uu maaragta maqlay ama intuu goobjooggeeda ahaa qofka bani aadam uu duruuftiisu leeyahay ayaa xadidan marka saxaabada dhammaantood ninba cilmigiisa
heer buu gaarsiisnaa marka cilmigooda la isku dardaray ayaa diintoo dhan matalahaya ijtihaadkoodoo la isku dardaray ayaa diintoo dhan matalahaya marka nin si gaar ah macsuum u ah oo cilmigii oo dhan koobay ma uu jiro cali waxbuu yaqaanay cuثmaan waxbuu yaqaanay abubakar waxbuu yaqaanay cumar waxbuu yaqaanay wahaakada marka saxaabada cilmigooda nin kastaba intuu maaragtay nabi sal slam ka xifdiyey ayaa alxamdulilah tacaala na soo gaartay ayada ayaa maaragtay laga faa'iidaystay marka diinta hal saxaabi oo ka wakiila keligiis ma uu jiro mana jiri karo marka middaa waa in aada runtii loo fahmo ayaa loo baahan yahay baabka sagaalaad waxaan kaga hadlaynaa biidni illaahi tacaala alcilmi waalculamaa cilmiga iyo culammada saanu aragno walaalayaal waxaa weeye dadka muslimiinta runtii waxaa meesha dhigay oo ficod ka reebay waa gaabinta ay ka gaabiyeen cilmiga laga gaabiye weeye cilmigaasi gaar ahaan cilmiga sharciga gaar ahaan oo laga gaabiye weeye marka in cilmigii loo noqdo oo ummaddu qof kasta cilmiga sharcigaa ay qeybteeda ka qaadato culumta kalena horta laga faa'iidaysto aad baa loogu baahan yahay marka ummadda muslimka ah alcilmi sharci inay u noqdaan oo ummadda cilmiga sharcigaahi ay maaragtay ay bartaan oo lagu dadaalo oo meel kastoo laga heli karo la fududeeyo waa shay aada loogu baahan yahay maxaa yeele ummadda umma muslima weeyaan diin bay waardiyeynaysaa diinta la waardiyeeyana in cilmi loo leeyahay ayaa ka asaasa marka diintu aan la fahamsanayn marka qaarkood in xataa diinta la khaldo ayay keeni kartaa marka cilmiga ahmiyaddiisa waa shay aada loo yaqaano oo la og yahay loona baahan yahay in lagu dadaalo marka dhammaan dadka ducaadda qof kasta inuu cilmiga islaamiga ah wax ka qaato oo qeybtiisa uu ka qaato ayaa loo baahan yahay ilahi subxana wa tacala waa tii uu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah waa tii culimmadu yidhaaheen alcilmu qabla alqowli waalcamal intaan wax lagu hadlin intaan wax lagu tallaabsanin in cilmigeeda la yeesho la fahmo la iska hubiyo ayaa loo baahan yahay marka guud ahaan nolosha gaar ahaan dacwada iyo waxa la midka ah in cilmi loo yeesho waxa saxda ah iyo waxaan saxda ahayn ayaa laga maarmaan ah xagga culammada islaamka in culammada la xurmeeyo ama ha ahaadaan culammadii hore salafu saalixa oo saabiqiintii iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabiciintii ilaa qiyaama saaca laga gaarayo culammada muslimiinta ah oo diinta noo haysa oo qur-aanka noo haysa oo sunnada noo haysa oo caqiidada noo haysa culamaau sunna ah culamaau tawxiid ah in la xurmeeyo laga dambeeyo oo laga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay waxaa weeyaan waa culamaau sunna waa xuraas almilla kuwa diinta waardiyeynaya weeyaan waa qaadat lumma ummadda madaxdeeda weeye ahlulkhayr weeyaan ahlulahar weeyaan ahlulxadiid weeye ahlulfiqhi wannadar marka dadka noocaas in laga dambeeyo waa warasatu lambiyaa kuwa ambiyada dhaxlay weeye ambiyada cilmigoodiiba dhaxleen ambiyada camalkoodii ayay dhaxleen ambiyada sifooyinkoodii iyo dadaalkoodii ayay dhaxleen waa kuwa sunnada soo nooleynhaya wixii diinta la iloobay ayayna xusuusinhayaan wixii diinta laga tegey ayay ku camalfalahayaan ummadda ayay baraarujinayaan marka waa in aada runtii loo xurmayo laga faa'iidaysta weeye waati ilahi subxana wa tacaala uu lahaa inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay addoommadiisa kuwa ka baqahayaay waa culammada weeyaan bimacnaa kuwa baqidda dhabtaa la imaanaya oo baqidda ilaahay xaqeeda siinhayaay culammada weeye maxay ilaahay bay garanayaan subxaana wa tacaala asmaadiisay yaqaanaan sifaadkiisay yaqaanaan tacdiimkiisay yaqaanaan marka khashyo munaasab ah oo cilmigooda u dhiganta ayay la imaanayaan marka culammada in la xurmeeyo oo cilmiga laga qaato oo wax laga barto ayaa loo baahan yahay in maaragtay wanaagooda la sheego ayaa loo baahan yahay in maxaanku la ixtiraamo ayaa loo baahan yahay qofka marka culamada aan ixtiraamaynin oo xumi ka sheegahaya oo cambaareynayaay qofkaasi qof toosan ma aha qof waddadii haya ma aha culammada guud ahaan marka macsuumiin ma aha ijmaaca culammada ayaa macsuum ah ijmaaca ummadda ayaa macsuum ah laakiin culammada fardi fardi ahaan macsuum uma aha laakiin culummada ayaga issaxay sixitaanka culummada culumaa iska leh masaa-isha diinka niqaashkeeda iyo baaritaankeeda culumaa iska leh marka haddii culummo ama caalim uu meel garan waayo ama meel ka hoos baxdo caalim kale ayaa darajadeeda iyo fahamkeeda iska leh dadka caamada marka inay
culummada maxaanku warahaa ay ka dambeeyaan ayaga ayaa wixii xataa jira kala saarahaya oo noo bayaaninhaya marka ayagu fardi aan macsuum uma aha laakiin ijmaacooda muctabarka in la iltizaamo ayaa loo baahan yahay gaar ahaan waqtigan dambe oo dhibaatadu badan tahay oo dadka muslimiinta musiibooyin fara badan ku habsadeen oo masaa'il fara badan cusub tahay dadka ahlu cilmiga ah oo ahlu tawxiidka ah oo ahlu sunnaha ah oo ahlu fiqhiga ah in laga dambeeyo laga faa'iideysto ayaa loo baahan yahay laakiin haddii la yidhaha culammadii diinta ma yaqaanaan oo dhalinyaro hadda soo baxday baa ka badisa haddii la yidhaha culammadu waa khaa'iniin ummadda khiyaanahayaan haddii la yidhaha yani culammadu maxaanku idhaha gaaladii bay reecan la yidhaaho hadda markaa ummad culamo la-aanahi xaggee bay gaaraysaa waxaa loo baahan yahay in la fahmo marka ummaddaanu baaba'ayso waa markii culummada la waayo weeyaan sida axaadiista ku cad nabi sal ku leeyahay maaragtay ilaahay cilmiga maaragtay wuxuu ku qibdoonayaa markuu culummada qibdoodo markay culummadu dhammaatana dad juhaala baa soo harahaya markay soo haraanna had cilmi ma lehe waxbaa la su-aalayaa markaasay khalad ku jawaabayaan markaasay baadiyoobayaan ummaddana baadiyeynayaan marka maanta culimmadii joogta oo cilmigii noo haysa oo insha Allah taala camalkii noo haysa oo dadaalkii noo haysa ayaaba la doonayaa in laga tallaabsado marka ummadda haddii culimmadu ay ka boodo meesha la aadayaa waa xaggee marka waa in la fahamsanaadaa diinta ummadda jiritaankeedu diinta oo jirta ayay ku xiran tahay diinta oo jirtaana culimmada oo jirta ayay ku xiran tahay wax kastana sida loo kala badsho ama sida loo kala maartay yaqaano iyo waqtiga lagu baxshay ayaa loo kala xigaa bani aadamku dhaqaatiirta iyo cilmiga adduunka sida loo kala khibro badan yahay oo dhakhtarka 40 sano iyo 50 sano dhakhtarka ahaa iyo ninka maanta soo qalan jibiyey dadka agtooda uma sinna dadku ninka hore khibrada leh ayaa la aadaya oo saf loo galaya oo lagu kalsoon yahay maxaa yeelay cilmiga inuu maartay ku duxay oo cilmiga uu fahmay oo wax badan daalacday oo dad badan is arkeen oo dad badan ay niqaasheen ayaa lagu tuhunsan yahay laakiin ninka maanta soo qalan jibiyey khibradiisa yar aqoontiisa yar dadka uu maxaanku yiraahdaa ka faa'iideystay ayaa yar marka asbaqiyada sida loo kala horeeyay sida loo kala xataa da'weyn lafteedu muctabar weeye marka culimada in laga dambeeyo oo la ixtiraamo oo laga faa'iideysto diinta ku dhisan ummadda ayaa ku dhismaysa taas ayaa laga maarmaan ah waana manhajkii salaf saalix runtii laga dhaxlay weeye marka mar hadda aragtid dad culimada duraya culimada ahlu sunnaha horay baa loo duray oo mesela mu'taziladu waqtigoodii culamaa ahlu sunna culamaa ahlu xadiidka way duri jireen dadkii munaafiqiinta ah saxaabada culimada ah waa duri jireen kuwii khawaarijta ah saxaabada way duri jireen marka dadka culimada oo la duraahi maanta ma bilaaban kuwa duri jireen markasta firaq daalla ah oo firaq naariya oo ahlu naar ah ayaa duri jirtay oo dadka baadiyeynaysa marka cilmiga iyo culimada in lagu dadaalo oo la ixtiraamo oo la soo nooleeyo kala dambeyntii ardada iyo culimada kala dambeyntii ardaga iyo sheekha kala dambeyntii caamada iyo culimada ayaa loo baahan yahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh